laba nin ayaa waxay ku noolaayeen magaaladii ayaa aad iyo aad ugu xumaatay kadibna waxay go'aan ku gaareen in ay magaalooyin kale ay shaqo u raadsadaan. labada nin wuxuu ahaa nin aqoon leh farsamana yaqaano laakiin midka kale waxba ma uusan garanaynin. kadib markii soo ambabaxeen oo meel lahaa ay marayaan ayaa midkii aqoonta lahaa shaydaan u sheekeeyey oo waxa uu yidhaahday ninkani haddii aad magaalo tagtiin wax oo aqoon ah oo ku shaqaysa ma lahan, adiga ayuu korsaar kugu noqonayaa, asagana magaalo kale u dir adna magaalo kale aad. waa uu ka soo horjeestay waxa uu yidhaahday nin yahow waddadan way i kala qaybsantay, aniga adiguna waddadan ayaan kala raacaynaa, waddadan raac ama midaan raac. wiilkii dhallinyarada ahaa ayaa waxa uu yidhaahday ma xuma waantaan isla soconnay kuna heshiinay in aan magaalo kale shaqo u raadsanno, maxaa sababay in adigana magaalo aadid anigana magaalo aan aado? waxa ugu jawaabay niyow adiga waxaad tahay aqoon ma lihid, farsamo ku shaqaysatid ma lihid, aniga laakiin aqoon ayaan leeyahay, farsamo ayaan ku shaqaysta ayaan leeyahay, qur-aanka ayaan aqaana, daaro macallin ayaan noqonayaa, marka adigana culeys ayaad igu noqonaysaa, anaad korsaar igu noqonaysaa, waxaan hela ayaad cunaysaa, marka dhibkaas ma rabo saaxiibow ina kala wareeji magaalo kale aad, weliba midii adiga aad dooratid maahane midda kale ayaan aadayaa. kadib wiilkii dhallinyarada ahaa markii uu tuugay oo diiday, asagana waddadiisii ayuu raacay, horay ayuu usii baxay. kii kale farsamada yaqaanay aqoonta lahaana dhinac kale ayuu u baxay. kii aqoonta aan lahayn waxa uu imaaday magaalo aad iyo aad u weyn, meel uu wax ka bilaabana ma uusan garanaynin. asaga oo socdo ayuu waxa uu yimaaday islaan jidka wax ku iibinayso muufa iyo alaab iyo wax samaynayso iyo madhaasiga. waxa uu ka codsaday in uu caawa marti qaado magaalada uu ku cusub yahay, dadna uusan ka aqoonin, meel uu degana uusan garanaynin. kadibna waa ay soo dhoweysay, salli iyo gogol ayay u dhigtay. intii oo la joogtay ee raashinka ay siinaysay ayaa waxa u imaatay gabar dhallinyaro ah. gabadhii ayaa wax ay ka gadatay islaantii alaab iyo wax ayay ka gadatay, gabadhiina dib ayay u noqotay. gabadhana waxaa dhalay boqorka magaalada ayaaba gabadha dhalay. waxay ku tiraaday islaantii gabadhan ciidan ayaa waardiyin jiray, maanta keligeed ayay socotaa. in cabbaar ah markii ay sii socotay gabadhii gurigii aabbaheed ayay tagtay, boqorkii ayay la kulantay. kadibna boqorkii waxa uu dareemay iyada oo dhuunteeda tataabanaysa. waxa uu yidhaahday maxaa kugu dhacay? waxay tidhaahday katiinkaygii ayaa iga maqan. markaas ayuu yidhaahday maxaa intuu aaday katiinkaaga? waxay ku tiraahday islaantii habarharaantii ahayd ayaa katiinkayga iga qaadatay. oo islaantii oo u imaaday ninka marti qaadi ayaa waxaa la oran jiray habarharaantii. kadib laba askari ayuu soo daba dhigay, waxa uu ku yidhaahday habarharaanta u taga, gabadhayda katiinka iga qaadatayna si degdeg ah ha kusoo dhiibto. markii loo imaaday oo la weydiiyey katiinkii way yaabtay oo waxay tiraahday anigu katiin ma arag, gabadhani way ii imaatay, waxay iga gadatay wayna iga tagtay ee maahanay anigu wax aan ka qaatay malah, waxna iima aysan dhiibin. waxay tiraahday ninkan musaafurka ah xataa waa joogay, asagaa weydiiye. laakiin ninka musaafurka meesha fadhiyo wax walba oo meesha ka dhacaya waa u jeeday. waa daadii gabadhii markay imaanaysay katiinkii ayaa ka dhacay, diiq ayaana laqay. intaas wuu arkayay, wax war ah oo ku darsadayna ma aysan jirin. markii la weydiiyey ee la yidhaahday maxaad meeshaan ka dhacay aad og tahay? waxa uu yidhaahday subaxda ii imaada, caawa ayaan fiirinayaa wixii meesha ka dhacay. askartii ayakoo yaaban ayay iska noqdeen, habarharaantiina aad iyo aad ayay ula yaabtay oo waxay tiraahday ma waxaad aragtay sheegteed, maxaad u leedahay inaamaa wax ka qaaday? asagana waxa uu yidhaahday dhib malaha, katiinkaas meeshuu ku maqan yahay iyo meeshay ku tuurtay aniga ayaan caawa raadinayo. waagii markii uu baryay ayaa labadii askari soo noqdeen, habarharaantii ayay u imaateen, waxay ku yidhaahdeen katiinkii meel ku sheeg. habarharaantiina wiilkii ayay kicisay oo waxay tiraahday askartii waa imaadeen, ballantiina waa la joogaa. waxau yidhaahday buusiis inta isku tuubay katiinkii diiq ayaa liqay. markaas waxay yidhaahdeen diiqa waa diiq noocee ah? kadib habarharaantiin intay oraday ee diiqii xaafadii soo aruurisay, marba miday u keentaa, kan miya? asagana waxa uu yidhaahdaa maya, katiinkii diiq baa liqay, kan maahan. kadib diiqii markii loo keenay uu aqooday oo yidhaahday kan ayaa liqay.
katiinkii markii la bireeyay oo diiqii markii la bireeyay katiinkii laga helay ayaa arrintii waxa loo sheegay boqorkiina wuxuu yiri wax jira maahan waa waxay isla og yihiin asaga hal ii keeno haddii uu yahay nin wax isku hayo kadib boqorkii ayaa loo keenay ninkii dhalinyarada ahaa waxa uu weydiiyey maxaa taqaanaa maxaa ogtahay asagana waxa uu yiraahday anigu waxaan ogahay iyo waxaan aqaano ma lahan laakiin marmar ayaan wax fiirfiiriyaa boqorkii ninkii wiilkii intuu qol ku xiray oo wuxuu u soo bixiyey haraantigeelle kadibna ubbo ayuu dhex geliyey wuxuu u yeeray wiilkii oo wuxuu yiraahday haddii aaba diiqii katiinka u liqay aad ka dhex aragtay sheegtay ubbadaani waxa ku dhex jiro ayaa lagaaga baahan yahay wiilkiina aad ayuu u naxay waa uu fakeray hoos ayuu iskala hadlay oo wuxuu yiraahday ilaahayow habar haraantii maxaa ii keenay aniga mushaqo hoosta kasaday dadkiina waxay u maleeyeen meesha fadhiyay in uu yiraahday haraantigeelle kadibna waxay dhaheen haraantigeelle ayuu yiri boqorkii ayaa aamusiyey oo waxa uu yiraahday noogu soo celi maxaa tiraaday kadibna waxa uu fahmay waxa meesha ku jira inuu yahay haraantigeelle waxa uu ku yiraahday waxa meesha ku jiro haraantigeelle kadib boqorkii wiilkii abaalmarin ayuu siiyey iskana bax ayuu yiraahday markii aan ku baahnana waanu ku wacan doonaa wiilkii gurigii habraraantii ayuu ku soo noqday habraraantii aad ayuu u faraxday anigoo maanta waa ay badbaadisay wadaardu gurigayga iska deganaaw qolkaas iska deganaaw magaaladaadana ka shaqaraaso kadib in cabbaara magaaladii markii uu joogay oo boqorkiina meesha dhaqaale ayuu ku siin jiray oo markasta boqor wuxuu ahaa faalka iyo waxyaabahaas ka dambeeyo xoolo ayuu siin jiray wiilkii oo noloshaas isaga jiro ayaa maalinkii dambe boqorkii waxaa laga haday hanti aad iyo aad u fara badan dahab iyo diamond aan inaba caadi ahayn boqorkii kadib wuxuu isugu wacay raggii faalshowga ahaa ee magaalada joogay wiilkiina uu ku jiray wuxuu ku yiraahday alaabtaas ayaa iga maqan in badan ayaan idin biilayay waxaan doonayaa alaabtaydii meel in aad ku sheegtiin raggii qaatayna aad ii sheegtiin wuxuu sii raacay intaas haddii aad bariis wax ii sheegi weysiin waxay ugu ballana lacagtayda ani ka samri maayo idinka ayaan idin laynayaa saa intaasoo sano waxaan idinku biilay dil ayaa idinka gudanayaa wiilkii asoo murugaysan ayuu habarharaantii u imaaday waxa uu ku yiraahday boqorkii arrintaas ayuu sheegay anigana waxaan ogahay ma lahan oo arrimaha dhanba sidaas ayay ahaayeen waxaan u malaynayaa biri boqorka inuu dili doono laakiin aniga waxaan rabaa in aan caawa anbabaxo alaabtayda ii diyaari waxaan jidku marin lahaana ii diyaari habarharaantiina sidii ay ku heshiiyeen oo wuxuu yiraahday xidigaha saddex markay soo baxaan xidigaha kan saddexaad soo baxo ayaa inta ka anbabaxaya tuugadiina kadib markii meel isku imaadeen waxay yiraahdeen annaga cidna ogaan karta ma lahan ilaa iyo wiilkaas guriga habarharaantii joogo kaas ayaa noogu dhib badan kuwan kale wax ay og yihiin ma lahan intaas markay dhacday ayaa mid ka mida loo soo diray in uu u dhunto oo soo dhageysto laakiin wiilkii habarharaantii ayuu la hadlay oo wuxuu yiraahday habarharaantii xidigii goowaad waa uu soo baxay aniga markaan waan baxayaa kii tuugana wuxuu qaatay xidiga la sheegayaba inuu asaga yahay kadib orod ayuu isku taabtay wuxuu u tagay tuugadii kale saaxiibadiis ahaa waxa uu yiraahday ninkii saas ayuu dhahay waa uu ogaaday midkii labada dhaqso soo baxay oo meel u dhow taagnaa markuu meesha imaaday ayuu asagana xidigii labaad arkay oo wuxuu yahay habarharaantii xidigii labaad waa uu soo baxay markaani taade macasalaam aniga waan dhaqaajiyey markaas ayaa kii intuu orday kii kale u tagay wuxuu ninka anigana wuu sheegay saddexdoodii ayaa soo wada baxay oo wuxuu yiraahday kii saddexaad haddii uu sheego waan tuugaynaa si uusan boqorka arrinteen u gaarsiinin markay saddexdii imaadeen ayaa wiilkii hadlay habarharaantii yiraahday habarharaantii saddexdii xidigba markaani waa diyaar ee macasalaama markuu inuu baxa isku dayayba way ku dhageen oo waxay tuugeen oo waxay yiraahdeen niyahow hayna sheegin boqorka noo sheegin waan ku baryaynaa wuxuu ku yiraahday haddii idin rabin in aan idin sheego xaggee baad geyseen xoolihii kadibna xoolihii ayay u sheegeen meesha ay ku qariyeen wuxuu yiraahday xoolahani aniga sheegayo laakiin idinkana idima sheegayo yaa idinka laydin arkin yahayna iska shifina subaxdii ayuu boqorkii u tagay boqorow aniga wuxuu yiraahday
nimankii qaaday wejigoodii way daboolnaayeen wana arki waayey, laakiin xoolihii meel noocaasa geedka halkaas ku yaallo dhalankaas loo baxo ayay ku aasan yihiin. kadib wixii waa la raadiyey tilmaamihii sidii loo wadayna meeshii markii la imaaday wuxuu yidhaahday xalay meeshaan arkay meeshaan ayay ahayd. meeshii haddii la qufay waxaa loogu tegay hantidii boqorka oo dhammaystiran. boqorkii aad iyo aad ayuu u farxay. wiilkii uu abaalmariyey waxa uu siiyey geel ayuu siiyey, lo' waa uu siiyey, ari badan ayuu siiyey, fardana waa uu siiyey, gabadh aad iyo aad u qurux badanna wiilkii waa loo guuriyey. wiilkii kadib wuxuu isdhahay haddii xoolahan hantidan intaa ah aad heshay, dahabkan aad heshay, fardahan, waxaa kuu fiican in aad gobolkaadii aad ku noqotid. haddii kale beri boqorka arrin kalaa dhici doonto, maalin kastana si aad ku badbaadaysid malahan. wiilkii waxa uu ambabaxay magaaladii uu ka soo jeeday, xaaskiisiina horay ayaa u sii watay. intii uu sii socday ayaa waxaa ka hor imaaday ninkii farsamayaqaanka ahaa oo 3 neef oo ari iyo 1 saca wato. asagana way iswareysteen oo wuxuu yidhaahday muddo 5 sano ayaan kala maqannahay, maxaad la soo noqotay? kii wuxuu yidhaahday 3 neef iyo intaan helay, laakiin waxaan ku weydiinayaa waxaana xoolo ah oo saan u badan adigo xaggeed baad ka soo heshay? kiina waxa uu yidhaahday soo ma ogid ilaahay inuu irsaaqda bixiyo, qofkii uu doonana sida uu roobo u irsaaqayo, irsaaqdiisana ay waasac tahay, cidina cid ay ugu dhiibin. adiga waxaad ku fakaraysay hadduu ninkan ku raaco adiga ayuu korsaar kugu noqonayaa, laakiin aniga haddaad iraaci lahayd aniga ayaad korsaar igu noqon lahayd. maanta xoolo intaan ka badanna waad heli lahayd, laakiin aniga maadaama saaxiibkay tahay aad i xumaysay, 3 neefna ala soo noqotay, aniga ayaa xoolo kugu darayo. kadibna in aan kala tagnay cidna ha u sheegin, si nabadgelyo ana magaaladeennii ha ugu noqonno. sidaas ayay ku soo noqdeen oo ilaahay irsaaqdiisa qofkii uu rabo waa uu siiya, oo cidna irsaaqdiisa uu bixinayo kalama tashado. halkaas ayay maanta sheekadeennii inoogu eg tahay. وبالله توفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.